كانت شاكينا ترى هذا الكسو تأثير يجسطوري تمتى أنتي داوعك سو جاري صورات كخادة صورات تمر بهنا يتهمك هرجيسة مركات كتير نقدي بحيث هذا الاختر كاتكتير اختر كلمة كسوسفي يعطيمهم يانو بهنا الماس هدي أنوايو أصودي وإذا عطيمها المهير أبانو بهنا هاي وادي جسوا قربحي المهير يانو بهنا عطيمها هدي لي واي المهينا كسود لي أنا واه المهير وان يكاغ فرديا المهير يكاغ فرديا مش هتجسي مش كودم بي أنا يقول أكتسني ده المهير بانو بهنا عطيمها هدان وايو سوماني محمد مرخاتي هذا sheekada intii aan naqaanay way dhaaftay intii anagu aan naqaano caadiga ahayd way dhaaftay oo meel kale ay maraysaa laakiin xaalka Allah hadijiyo Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan idin salaamay akhiyaarta qiimaha iga mudan meel kasta adduunka ka joogtaan Ramadan Kareem ayaan idin leeyahay oo walaalkan Cabdullaahi Macal Xuseen oo aad ka wada socotaan channelkan quruxda qoyska joog walaalayaal horta aniga meeshii aan ku yaabay halkii aan ku yaabay baan wali fadhiyaa tan iyo maalintii sheekadan ay bilaabatay meeshii aan ku yaabay baan ilaa hadda fadhiyaa waa xaal adduun oo la marayo qofkii Allah hadashaba inuu codkaaga duubayo wal ciyaadu billah qofkii Allah hadashaba warda asxaabay dadka aan wada hadallo codkanaga ma duubtaan waan yaabana aniga waa xaalad la marayo maanta qofkii Allah hadasho inuu codkaaga duubo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un sida alla socotaan gabadhii walaasheen ahayd ee rasmi rays de kulay kula laaban maayo muuqaalka iyo macnaha waxa weyn sidii ay wax u dhaceen qof walba waa ka dharagsan yahay ugu dambeyn walaasheen rasmi rays waxay ka hadashay oo ay sheegtay in wiil ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay wiilkiina magac ay u bixisay arintiina kadib uu ka soo hadlay Farxaan Yare inta social media ku jirta arintu markuu soo hadlayna iyadina ay u soo jawaabtay haddaba hadalka Farxaan Yare uu markii hore ka soo hadlay wuxuu markii uu soo dhigay codad tiro badan oo qaar iyada uu kula hadlayay iyo qaar walaasheen hooyadeed oo Farxaan markaas oo u ahayd cod uu ka duubay la soo fariistay social media halkaas ay horta xaalad maraysa عجيب sheekadu waxay socotaba walaasha rasmi rays mar kale soo hadashay wax walba oo caloosheeda ku jiray ayay banaanka keentay rasmi rays waagii Hargeysa ay ka soo laabatay wad ogeydeen waxay sheegtay wiilkaas in ay kala tageen oo ay yihiin dad walaalo ah barnaamij isaga ku saabsanna aysan ka hadli doonin dadka macnaha marka af laga deenaya ama comment uu qorayo ama wiilkii dhahayo saan waayo oo uu ku xumeeyay waan ka xunahay dadka dhahayana ay u jawaabayso ay dhahisay wiilkaas wiil walaalkay weeyaan calaf baa isku kaaya daray haddana calafka nagi baa dhamaaday inaan intaan meel soo fariisto aan af laga deeyo raalina kama ahi diyaar uma ahi wiilkaas muslim ee Soomaaliyeed ee walaalkayga ah idinkana walaalkiina ah caayda iyo af lagaadada laga daayo waxay ku hadashay hadal raganimo ku hadashay raganimo adigu sheekadii marka dambe way soo tartay kadib waxay tiri wiil baan dhalay oo hebel baan u dhalay Farxaan baan u dhalay oo saan waayo oo kadibna sheekadii prank markuu ninkii odayga soo jawaabay haddaba jawaabtii uu soo jawaabay iyo hadalkan iyaduna ugu jawaabtay wixii ka dhashay dhagay far bay noqotay dhagay far subhanallah war maanta ma waxa la marayaa gabar ilaahay calaf intuu isugu keen daray ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin ka dhigay qoys Soomaaliyeed oo meel degan haddii khilaaf dhaxdiina uu galay wax si sulxa aad ku dhameysan kartaan in markii gabadhu ay ku soo wacdaba cadeen laga qabto gabar Soomaaliyeed oo maanta inta ku soo wacday kule waan ku jecelahay ha jecelku waa jiraa maxay isku guursateen ma waxa isku guursateen nacib waa maya jacayl ba isku guursateen Soomaa war bal Ilaahay baa idin ku dhaariyay ninka walaalkeena Farxaan Yare waa bil Ramadaane ku fogaan kari maane maadaama iyadii ay tiri aniga iyo walaalkay Farxaan waa kala tagnay ba wuxuu cadeen uga dhigayaa macnaha in la furay in kale
codna waa ka duubaya waa arrin kale waa baab kale anaga naga weyn waay taas bal marka hadalkiisan aan wada dhageysano يا كفر يسحق له كفر أي شيء أنت أمد أنت ورق سوفر فريستال هذا ولا أفر حق له كفر يا زكف دين باجر تحير باجر وحل باجر لنا يا كفر أنا عدسة حق له كفر إيش هو ديني إن حرام تيموت هذا كفر ندار هذا الأفر يركب حرين ولا أفر له قرموا يا مثلا كفر يا تكفرتي أنا كحنا الصومان كحنا خير إلا كنت تنتظر مهن هذا كحنا خير كنت تنتظر ma sii dhageysan karno intaa ka badan waan raalli ahaanaysaan idinkuna muhiimadda inta aan usoo qaatayna waxay ahayd keliya isaga codkiisa inaan isla dhageysana laakiin kusii mashquuli mayna annaga hadlan sideedaba horta qofka dumarka ah waa iska taqaanaan oo hadda macnaha waxa waaye qof walba waa ogyahay haddii xoogoo khilaaf dhaco waxa ugu horeeya ee dumarku la soo boodaan warqadayda isii waay ifur macnaha laakiin warqadayda isii in cod looga duubo qalad waa isagu wuxuu isleeyahay caddeenkeen oo wax caddee waxa uga qiimo iyo sharaf badneed inuu iska aamuso maxaa yeelay soomaali waxay tidhahdaa af daboolan waa dahab inuu iska aamusaaba uga khayr badneed bedel inta cod ka duubo uu baraha bulshada keeni lahaa waayo intaasoo muddaba codkan waa hayay sooma haddii uu hayay inuu soo gudbiyo codka oo bulsho hor keena qalad bay aniga cabdullaahi ahaan ila tahay isku soo wada duuba marka waxa waaye hadda another level bay maraysaayo wuxuuba taagan yahayba cunugeygii ilmahaygii aniga calooshaad iigu siday ee uurkaad ii lahayd baaban kaa doonayaaba waa baab kale oo u baahan iyadana xal gooni ah kolay laba qofood oo isqaba waxay dhex maray qof badde gabadha walaashana meel bay soo fariisanaysaa isaguna meel buu soo fariisanaya labadoodu way hadlayaan anigii kuma dhex jirno oo uma aanan kala dab qaadeen cunuga halka uu ku dambeeyay dad sheegi kara ma nihin laakiin qofba wax buu sheeganaya ilaah baa subxaana wa tacaala xaqiiqda og laakiin sideedaba arrimahaas oo kale markay imaadaan waxaa habbooneed in si gooni ah loo wada hadlo oo social media aan arrintaa la keenin gabadha walaashaya ee rasmi rays oo runtii ah gabdhaha aadka u firfircoonna ku jirta social mediahana ku jirta oo dad fara badan oo Soomaaliyeed taageero buuxda ka haysata iyadana waxaan dhihi lahaa walaalay min fadlak si sheekadan u soo koobanto oo aanan xagga la isugu soo fariisan maalintii ugu horeysay ee muuqaalkaaga aan ka hadlana waan kuu sheegay maantana tala qaado oo barnaamijka soo kaloos gareeya waxaan oo kale waa ceeb waa aflagaado dad badan baa lagu xadgudbay waxa lagu xadgudbay family dhan oo gabar ka soo jeeda lagu xadgudbay waxa lagu xadgudbay qoys dhan oo ninkii adigu ku qabay uu ka soo jeedaad ku xadgudubtay isagiina family-gaagii buu ku xadgudbay soo marka waxay noqonaysaa marka in sheekadu ay isu bedesho jufo hoose iyo lambaro ay isu bedesho lambaro 4.5 inay isku bedesho bay gaaraysaa haddii halkaa ay gaartana xal yeelan mayso ilaahay intaa ka cabsataan bil ramadaan baa lagu jiraa bil barakeysan oo cibaada lagu jiraa dadka yan la mashquulin dadka ha mashquulinina waxaan way dhaceen sidee wuxuu dhaceen lama yiraahdo sidee lagu xaliyaaba meesha ku jirta macnaha in maanta codkaaga inta la soo qadqaado bara bulsho la keeno yiraahdo ayada ay jeclaan jirtay wax macnaha dhigaha dadka u wanaagsan ma aha gabar Soomaaliyeed baa tahay sharaf baa agtarada ka leedahay ixtiraam iyo karaama ku heena walaalay macaani sheekada ka dig isa halka kula dhaafin maxaa yeelay Soomaali waxay tiraahdaa raad arooriyad ninkii qaada saxaru dul tagaa subax waagu markuu bariyo haddii aad tiraahdo alla ilaahay raadkan aan qaadaya meesha uu ku geenayo waa la ogi walaalay macaani sheekadan dami horta farxaan wuu qirtay gacan qaad inuu jiro farxaan wuu qirtay sababta ugu gacan qaadida ma naqaan halka ugu gacan qaadayna ma aanan joogin laakiin in gacan qaad uu jiro oo gabadha u gacan qaaday isaguna wuu cadeeyay iyaduna way sheegtay taa marka qayle kama taagna
laakiin arrintan kale waa la kala tuuray jiraan ka soo dhacay cunugiiba sidii iga soo dulmay baab kale ay gelaysaa baabka ay gelaysana waa baab laba family ma aha baab social media ma aha waa baab adiga qoyskaaga iyo isaga qoyskiisa ah ma aha baab adigana cod aad soo dhigto isagana cod uu soo dhigo oo aanan fahmaynin waxa laga faa'iiday oo aanan ka ahayn in adiga lagu xanto oo aanan ka ahayn in isaga la xanto faa'iido ka soo baxaysa anu garan maayo soo marka si aysan taa u dhicin oo aanay dhibaatadan u sii ballaaran min fadlakum sheekada iska xira farxaan wiil Soomaaliyeed baa tahay nin hadda fanaan baa tahay walaalow gabari way kula dhalatay de haddaad dhashayna waaba dhashay haddii aadan dhalinna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku siinaya oo ilaah baan kaaga baryanaa hooyaa ku dhashay oo gabar ah ta aad qabtay oo markii hore aad soo kala tagtayna gabar bay ahayd tanna waa gabar Soomaaliyeed oo adiga garabkaaga ah waan ognahay noloshii idinka dhaxaysay social media dhoola cadeyntii aana tusaysan ilaahay intaa ka yaabto gabadhaas Soomaaliyeed ee walaashaada ah cod ay kugu aamintay iyo muuqaal ay kugu aamintay ha isku dayin inaad bara bulsho soo dhigto hadda wali shakadaadu dabaqabad bay leedahay min fadlak ilaahay intaa ka yaabto muuqaal iyo cod gabadhaas walaasheena ay kugu aamintay oo ay kugula hadashay ilaahay intaad ka yaabto bulshada hala wadaagin rasmiyay adiguna sidoo kale kulay dad social media ku wada jira ahaydeen nin walba cod waa laga hayaa haddii shakadu halkaa marayso rasmina waxa laga yaabaa inay ayadana bakhaaro u buuxaan bakhaaro meel u yaalaan isaguna wuxuu ku sii hanjabayaa haddii mar kale aad soo hadasho oo liigu kalifo muuqaalo adiga oo ooynayo aad ii soo dirtay aniga adig ila wan isognahay baan soo dhigaya tan ba adiga igu kalifo yiri ceeb ma aha ninkaaga inaad tiraado waan ku jecelahay xaaskaaga ma ihimiya inaad tiraado ceeb ma aha xanaaq labada qofood waa dhaxmari karaa waa ceeb weyn ma aha wax laga bumbuuniyo ama qof lagu ceebeeyo ama qof lagu caayo ima muuqdaan aniga maxaa yeelay gabadhan waxa ay la hadlaysay waa ninkii iyada qabay sidoo asaguna markaa cadeeyay oo uu sheegay wuxuu yiri markaa ma aanan kala tagin iyadoo baa sheegto tiri wuu ifuray ninkii anigana ma aanan furin soo marka codkan uu duubay waa cod labadooda ku wada sheekaysanayeen iyagoo markaa isqaba soo xaaskaaga ma ihi marka ilada de waa xaaskiisa marka gabar ninkeeda la sheekaysanayso haddii aan ceeb ka dhigno ceeb ma noqonay waa ma jirto yaanan ceeb ka dhigin gabar ninkeeda la hadlayso oo leh waan ku jecelahay ceeb yaan laga dhigin qodobka labaad adigoon ifurin inaan iraado ninkaa wuu ifuro waan kala tagnay waxa iga keenay tiri xanaaq adi aan ka xanaaqay xanaaquna wax walba waa keena waayo qofku markuu xanaaqo shaydaan baa ku xiriira wax walba ka filo waatan haddaba adigu aa leedahay waan kuu gacan qaaday gacan qaadka waxba iga keenay gabar Soomaaliyeed oo xaaskaaga ah oo ilmo calool kugu sida sad suuq dhaxdooda ugu gacan qaadaa ma gacan qaadi kartid soo marka gacan qaadka wixii kugu kalifay unba iyadana ku kalifay inay tiraado ninka waan kala tagnay soo marka in maanta news laga dhigo ama wax weyn laga dhigo gabar ninkii iyada qabay waan ku jecelahay oo xaaskaaga ma ihmiya dhahayso in ceeb laga dhigo anigu uma arko big deal wax weyn uma arko sheekadan dabaqabad bay leedahay inta aysan baraka mali gaarin rasmiyay adiguna halkaaga ku stop gareen walaalkay farxaana waxa la adiguna walaalow dar ilaahay inta ku degto iyo dabil moosa sheekada halkaa ku ekee oo halkaa ku soo gabagabe waayo bari waxa ku taal markay ayaduna codad ay hayso soo dhigto ninka gabadha Soomaaliyeed nooca u xumeeyay gabadha kale mustaqbalka uu ka raadinayo waa gabadha waa ma jirto gabar walba waxay qalbiga ku haysataa iyo niyada in gabar kale soo xumeysay leen codadkaagii baa la soo dhigay adigana sidoo kale rasmi laba qofood oo isku doon saaran baatiin sheekaduna dabaqabad bay leedahay halka ay taagan tahay ilaahay darti ugu joojiya indhaha iyo dhagaana naga oboys garanina sheekada halka nooga soo xira aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbiyada labada qofood ee walaaladeena ah waa farxaan iyo rasmireese ilaahay burcad ha isku mariyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qaladaadka ay kala tabanayaan iyo dhibaatooyinka ay kala tabanayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala si fudud ha ugu dhameeyo arintan waa arin family ee ma aha arin social media ma aha laakiin in maanta dhan xagga loo boodo social media la soo taagnaado saanan ka haya ma fahmin aniga Soomaalidii marka maxkamad bay u noqotay social media inay ku gala gar qaataan waan ognahay
nolosha social media iyo nolosha privateku in ay laba kala tahay wax weyn ma aha taas dadka dhan waa ogyihiin dadka dhan waa ka dharagsan yihiin ma fahantay albaabka markii la xirto oo kaamirada la damiyo ya waxa dhacay ama waxa dhaca qof walba waa ka dharagsan yahay oo wax weyn oo hadartaan qof lagu xumeeyo iima muuqato farxaan waxaa leenahay walaalow raalli ahaw halkaaga ku deg rasmina waxaa leenahay walaalay raalli ahaw halkaaga ku deg ilaahay dartiina isu cafiya waa bil ramadaan waa bil khayreysan waa bil barwaaqo khayrun min 1000 shahr baa ku jirto aan ka faa'iideysano aad baa u mahadsantihiin muuqaalka waan ku dheeraaday intaan kalamada dibid soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.